wararka naga soo gaaraya dowlad deegaanka Marsabit iyo Narok ayaa sheegaya in laba qof ay u dhinteen dhaawac daran oo uu u geystay maroodi soo weeraray dhacdadii ugu horeysay nin 30 jir ahaa oo ka tirsanaa ciidamada biliiska kaydka ayaa waxa uu ku tuntay maroodi xilli uu ku sugnaa beerta Marsabit ninkan oo magaciisa lagu sheegay Elmalina Ledo ayaa watay qorigiisa G3 xilli uu marayay deegaanka Endonwaidi ciidamada booliiska iyo kuwa duurjoogta Kenya ayaa goobta gaaray si ay ugu gurmadaan dhibaatada oo markii isbitaalka loola cararayna uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dilka maroodiga ciidamada ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dhacdan dhanka ismaamulka Nakurana wiil 14 jir ah ayaa maroodi ku dilay meel biyo ah oo ku tiilay tuulada Naruzura saacado ka hor wiilka ayaa markii la weeraray waxa la socday ama uu la socday xoolo uu daajinayay waxaana loo qaaday isna isbitaal laakiinse wuxuu u dhintay dhaawac soo gaaray dhacdooyinkan ayaa waxa ay cabsi gelisay dalxiisayaasha booqan jiray goobaha lagu hayo xayawaanada uu maroodiga qayb ka yahay